بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد الرسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaan idinkaga soo sheekeeyey taariikhdannada marka nabilaahi ciise ka hor iminkan waa kadib calayhi salaam nabilaahi ciise calayhi salaam kadib waxaan ka hadlayno xilligii axmed gurey wixii ka bilowday xilligii cismaaniyiinta gaalo weligoodu waxay nala rabeen inay na qabsadaan ayna isticmaalsadaan. iminka wixii la casriyeeyey ayay wadaan misna mar kale maxaa la casriyeeyey? waxaan hore idinkuu soo sheegay, miyaad isweydiiseen etoobiya inay samaysato ciidamo badeed ujeeddadeedu maxay tahay? miyaad isweydiiseen? su-aashaa waa idiin weydiiyey, weli jawaabaheedii ma hayo. waayo waa inaad baraarugtaan oo toostaan. ilaan etoobiya bad ma laha. badaha u dhow waa eritrea, waa jibuuti, waa innaga soomaali ah. meel kale u dhow ma jirto. way ka soo tag marka. waxaan kuu sheegay sababta lagu gumaadayo oo meel walba lagaa soo weerarayo waxay tahay inaad tahay asalkii aadanaha. waxaan kuu sheegay DNA-yada adduunka oo dhan markii la soo baaray ee dhowr jaamacadood ay soo baareen, Harvard, Oxford, jaamacado fara badan ayaa baaray oo ku sameeyey wax la yidhaahdo tirakoob statistic. jaamacadihii badnaa waxay sameeyeen, waxay ogaadeen in laba ay isku raacayaan, isku lahaanayaan dadyowga adduunka ku nool. nin Alaska jooga iyo mid jooga Far East bariga fog ayaa isku dhiig noqonaya. mid magaciisa jooga South Africa iyo nin jooga Korea jooga ayaa isku DNA noqonaya. laba siday isku raacayaan waxay ku soo wada biyo shubteen Soomaaliya. waxaan hore u soo sheegay Boorama meel u dhow ee la yidhaahdo Boon in laga helay lafaha adduunka ugu qadiinsan. war waxaas baa lagu weeraraya, lagu diidan yahay. ma ihid originkii baa lagu leeyahay. you are the origin. adiga weeyaan originkii. waa adiga. maxaa lagu diidan yahay? waxaa lagu diidan yahay, waxaad ogaanaysaa inaad tahay asalkii. waxaa tahay adduunkan oo dhan adaa ka talin jiray. ka bilow bariga Afrika, ka bilow ilaa galbeedka Afrika ku gee. Soomaali baa boqortooye ka ahayd. way soo socotaa. cashir ahaan waa idinku soo wadaa. waa nii idiinsii sheegay inay Soomaalida ay ahaayeen nimankii la odhan jiray faraacinada ee loo yaqiin iminka loo yaqaanaan odhan lahaa qibti maahee waa qabadle. ninka la yidhaahdo danagale waa dankeligii dadka ninkaad u taqaano. Or-am ama oodanabe waa ninka oromada aad u taqaanid. jaante waa ninka reer jaadka ah. iyo niman kale badan ayaa jira, rag kaloo badan. niman markaa leeh dumarkana way ku jiraan. cashirkanaga wuu dheeryahay. etoobiyada weyneedna way socotaa. warhooy baraarugu toos hurdadan ka kac. maxaa ku baraarugnaa marka uga badbaadnaa? aqoon. waa aqoon waxa looga badbaadayo, wax kale ma aha. deegaan waxyaabo wanaagsan oo sida adigoo kale dadkaas waxaad leedahay oo aad fariin aad u diraysaa. horta ma og tahay wax badan baa jira. barashada diinta inay ku yar tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ama ay fududaystaanba. waxaad arkaysaa qur-aankii akhrintiisii markaad baratid, haddana tafsiir ahaan inaad baratid. haddii gooraal waan ku waaniyaa kelibyo badan oo aan kaga waaniyo waa jirtaa inay bartaan diinta, ay bartaan. waayo diinta markay bartaan oo tafsiirkeeda ay bartaan, indhaha runta ah ayaa u furmaya. ma aha diinta barashadeedu inaad muxaadaro un dhegaysatid keliya. ma aha. muxaadaradii waa loo baahan yahay, waayo cilmi weyn oo ziyaado ah. laakiinse waxaa lagaa doonayaa adiga inaad bal ka soo bilowdid safiin salaad ka soo bilowdid, 40 xadiid ku xujisid, tafsiirkii aad baratid, micnihii qur-aanka micnihiisa aad baratid. waxay ogaan lahaayeen markaa dad badan, dhalinyaro badan baa ogaan lahayd inay qaldan yihiin. iminka sababtan kuu sheegaya ay ku qaldan yihiin. rabbigeenna wuxuu inoo sheegay ciddii isku ekaysiisaa cid kale
ciddaas unbuu ka mid yahay bimacnaa qoom haddaad isku ekaysiisid oo sidoodii iska dhigtid sidoodii unbaad ayagii unbaad ka mid tahoo maalinka qiyaamana ayagaa lagugu xisaabaya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof walba qofka uu jecel yahay baa maalinka qiyaamaha lala soo saarayaa dhallinyaradeenna waxay jecel yihiin ronaldino iyo messi balaayo ay jecel yihiin iyo agtare oo maaragtay yaana laga cadhoonin waa wax xaqiiqaa jira timaha yaree halkaa laga soo fiiqay surwaalkiiyo sii siibmahaya yacni waxaas maaha dhaqankeennii maaha suubanaa soomaaliyeed maaha diintana ma qabto waa lagu sheegay qur-aanka way ku jirtaa axaadiistana way ku jirtaa laakiin dhibaatadii waxay tahay ninkan waxaas samaynaya maba soo baranba qur-aankii ma soo baran tafsiir ma soo baran oo maba tukadaa laga yaabaa qaarkood inaysan tukanin baa laga yaabaa maalin dhoweed baan youtube aan daawanaya waxaan ku dhex arkaya waan jeclaan jiray meediyahaas laakiin waan nacay maalinkaasi markay soo saareen waan nacay nin maaragtay anshax xumo ka sheekaynaya nin weyn ah maaragtay waxyaalo badan oo aan diintana raalli ka ahayn oo qalad ku ah oo dhaqankii suubanaaya soomaaliyeedna oo haddana qalad ku ah ayuu ku hadlayay wax aan la sheegi karin loo qaadan karin meediyaasha aan qaar kuwaan wararkooda aan aad ku xiiseeyay ahaan jirtay laakiin maalinkaas waa iska close gareeyey khalaas waan ka saaray maaragtay inaan daawado mar dambe waan ka saaray waayo qaladkoodii kama aysan raaligelin xataa ummadda sidaan arkaya weli raaligelinna ma noqonayso xataa raaligelin ninkaas sidaa u hadlaya inuu asiga awalan ma garanayo kolleyba soomaalidii u taallaa dhallinyaradii u taallaa waxay ka yidhaahdaan laakiin anugu ra'yigayga sidaas weeyaan waa iska xidhay taas weli buu dhiirigelinaya oo hadda ma ka furi lahayd baa la yidhi somalilan waxyaalaha aad sheegaysid haa buu leeyahay waa cajiib oo ma ogolaan lahayd haa buu leeyahay waa cajiib marka aad baan uga cadhooday runtii fursadda dhallinyarada ay haystaan baraha bulshada inay wanaag uga faa'iidaystaan intay lahayd aad bay u badan tahay aad bay u fiican tahay waayo dhallinyarada soomaaliyeed aad bay wax u garanayaan aad bay wax u og yihiin waxyaalaha malaayacniga ah waxay ka jecel yihiin waxyaalaha ay wax ka faa'iidayaan matalan riwaayadaa la soo dhigaa heesasaa la soo dhigaa heesahaasi qaarkood way dhuuxaan oo miro dhaxalgalaa ku jiro oo maaragtay wax wanaagsan sheegaya sida matalan qofka dhallinyarada inuu waktiga ka faa'iidaysto inuu maaragtay maxaa la yidhahdaa wax barto inuu maxaa la yidhahdaa waalidkiisa baari u noqdo waa arrimaha wanaagsan waa laga qaataa laakiin waxaa macno lahayn iyo maaragtay dhaqan xumadaasi dhallinyarada aad baan uga waanin lahaa inay ka fogaadaan dhallinyarada aad baan uga waanin lahaa waxaan sida gaalada isku wada ekaysiiyeen xataa waxaa arkaysaa nin weyn oo geesaa soo xiirtay maaha micnaheeda haddaad diaspora haddaad tahay micnaheedii maahan sidii gaalkii isku ekaysiinaa maaha nin muslim baad tahay tan labaad nin soomaaliyeed baad tahay ama gabadh soomaaliyeed baad tahay dhaqankaagii suubanaa inaad sina oga tegtidba maaha waa inaad ku fahantaa browd waa inaad ku noqotaa maaragtay fiyeeq inaad ku ahaataa soomaalinimadaadii fiyeeq ku ahaataa macnaa browd ku ahaataa inaad tahay nin muslina ee soomaaliya ee adiga in lagugu soo daydo oo ku dayashada adiga in lagaaga daydo ayay ahayd dhaqanka wanaagsan asluubta wanaagsan anshaxa wanaagsan ma aha adigii maaragtay inaad ku dayatid mid maaragtay xoolihii oo kale ah ilaahay qur-aanku inoogu sheegay acuudu billaahi min ashaydaani arajiim bismi illahi araxmaan iraxiim in hum ilaa kalancaami bal hum adalluuna sabiila waa sidii xoolaha oo haddana waddadii dawgii saxda ahaa ka hawaabay ama ka lumay ya marka waxaan aad ugu bogaadinayaa dhallinyarada inay maaragtay bartaan diinta bartaan tan kalena ay ogaadaan inay soomaali yihiinoo halkaad doontid joog soomaali baad tahay ama city joog ama wajeeri gaarisa joog ama joog jabuuti ama hargeysa iyo boosaaso joog soomaali baad tahay adeer dhaqan suuban baad leedahay nin muslim baad tahay soomaalida boqolkiiba boqol waa islaam yaan lagu qaldin gabadha yaan lagu qaldin wiilow yaan lagu qaldin dhaqan gaaladii ugu qaldin messi ronaldino aakhire ayagoo jahanamada loo sii wadaa la geyn haddayna soo tooba keenin laftigooda haddii kale ayagoo lagula soo saarayaa
والعياذة بالله إله بان كما قال إلهي دي مكس إن شاء الله الله يدي سو هديه صلاة إلهي اسكتوا كذا